gudoomiyaha golaha sare ee ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosiyo Abuukar Shuute Xuseen oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka socotay beesha nabadda Yaxye Peace Foundation ayaa maanta booqday qaar ka mid ah iskuulada uu gacanta ku hayo ururka Doosiyo. ujeedka safarka ayaa ahaa in mas'uuliyiinta hay'adda Yaxye Peace Foundation ay kormeeraan iskuulada uu ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosiyo gacanta ku hayo isla markaana Yaxye Peace Foundation ay taabagelinayso. mas'uuliyiinta ayaa ardayda ku booqday fasaladoodii iyagoona ku dhiirigeliyay in ay sii horumariyaan waxbarashadoodii si ay u gaaraan hadafkoodii nolosha. gudoomiyaha golaha sare ee ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosiyo Mudane Abuukar Shuute Xuseen ayaa ugu horeen mas'uuliyiinta ka socotay hay'adda Yaxye Peace Foundation ku soo dhaweeyay fasalada. maanta aad ugu faraxsanahay marka hore Ilaahay ku mahadsan inaan soo gaarno iskuulka annagoo ka socono beesha nabadda ama Yaxye Peace Foundation oo iskuulkan uu yahay iskuulaadka aan taabagelino wakiilin ka socdo aan nahay mas'uuliyiin meesha ka socdo oo ku faraxsanahay ardaydeena inaan soo kormeerno oo aan soo kor istaagno oo aan soo booqano sharafayna noo tahay. waxay la socdo Xuseen Qadiib oo mas'uuliyiinta beesha nabadda ka mid ah adda Caliyana la socoto waxaana la socdo Xasan inteena waxaan idinku imaanaynaa waxbarashadiini aan aragno aan idin soo kontrolno oo aan heerkiina meeshu maray aan aragno. aadaan ugu faraxsanahay sidaan qiimaha badan inaan u fadhisiin oo u labisantiin oo diyaar u tihiin inaan wax baratiin. aadaan ugu faraxsanahay. Mudane Xuseen Qadiib oo ah gudoomiyaha hay'adda Yaxye Peace Foundation ayaa ugu horeen la hadlay ardayda. waxaan ka mid ahay guddiga beesha nabadda ee Yaxye Foundation. ujeedada oo asaasna waxay tahay inaan walaalaheen ilmaha waalidkuna adeeraduna aftiyaashuna inay wax noo bartaan. marka maanta farxad weyn ay tahay waa maalintii ugu horeysay aan soo booqdo anaga beesha nabadda culeyskeena Yurub u badan yahay iyo America iyo Canada laakiin hadda waxa waaye waa maamulka waa soo dhaweey rabnaa Muqdisho aan soo dhaweey rabnaa in xafiis aan ka furno oo howshiisa aan wadno si aan maaragtay iskuulaadka aan ugu dhawaano baahiyada aad qabtiin inta tafarteena in la garab galno. aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan maanta idin arko. ilaahayna idin fududeeyo annagana waa idin soo dadaaleynaa annagoo mas'uul ka ah walaalo badan oo beesha nabadda oo Yurub iyo North America joogaan. marka ilaahayna la garab galo. dhanka kale Aada Cali oo ah xubin ka tirsan golaha beesha nabadda ama Yaxye Peace Foundation ayaa iyaduna ardayda ku dhiirigelisay inay sii wataan waxbarashadooda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Aada Cali sida Xuseen u sheegay beesha nabadda ka soconaa. maanta waxaan u imaanay ardayda waxbarashadooda iyo halkay meeshay wax marayaan. marka arday walba waxaan jecelnahay inaan dhaxgalno wareysano. marka aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin. ugu dambeyn mas'uuliyiinta ka socday hay'adda Yaxye Peace Foundation ayaa ardayda u ballan qaaday inay sii wadi doonaan dadaalada ay ku bixinayaan horumarinta waxbarashadooda.